السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته قيارتنا عاجعلنا هاي كسو دوادا برنامج كينا فاقداد عيارها قضبادا عن كوهينا نوحا وقواوين ترتنكا قرامدا يوروب oo xalay bilowday Turkiga iyo Talyaaniga guuldaradii Turkiga wajigabaxii furitaanka tartanka qaramada Yurub iyo waxyaabihii laga diiwaan galiyay ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena faaqidaada ciyaaraha aan ku bilownay xalay waxa la furay tartanka qaramada Yurub waxaana lagu furay wadamada Turkiga iyo Talyaaniga kuwaas oo ku dheeray Olympic Stadium ee wadanka Talyaaniga ciyaarta ayaa waxay ka socotay hal dhinac Talyaaniga weerara iyo Turkiga oo difaac ciyaarta qaybtii hore waxa lagu kala baxay eber iyo eber hase yeeshee markii la isku soo laabtay ayaa waxa goolkii ugu horeeyay uu yimid daqiiqadii 53 waxaana si qaldan iskaga dhaliyay difaaca Turkiga ee Meri Demiral kaas oo boortiyeriga dawmariyay darbad lagu soo tuuray dhanka kale goolka labaad waxa uu dhashtay Talyaaniga daqiiqadii 66 waxaana dhaliyay Gero Imboli oo ahaa ninkii soo darbeeyay goolkii hore ee sida qaldan ay iskaga dhaliyeen Turkiga goolka saddexaad ayaa waxa uu dhashay daqiiqadii 79 waxaana dhaliyay Lorenzo Inzaghi kaas oo ciyaarta ka dhigay 3-1 haddaba maxaa laga diiwaan galiyay ama maxaa ku soo kordhay tartanka qaramada Yurub oo taariikh ah waa markii ugu horeysay oo tartanka qaramada Yurub la iska dhaliyo goolka ugu horeeya ee furitaanka ah gool counter attack ah ama gool uu iska dhaliyo ciyaaryahan goolka kooxda laga dhaliyay hadda si kale u dhigo waa goolkii ugu horeeyay ee difaaca uu ka dhaliyo wadankiisa si qaldan uga dhaliyo taariikhda tartanka qaramada Yurub ma aysan dhicin goolka furitaanka in loo diiwaan galiyo isla kooxda laga dhaliyay haddaba Turkiga kulankiisii ugu horeeyay waxa uu ku furtay tartanka qaramada Yurub guul darro xanuun badan oo ka soo gaartay wadanka Talyaaniga haddaba maxaa sababay in wadanka Turkiga looga badiyo 3 gool ayna soo bandhigaan ciyaar aad u liidatay maxaa keenay guul darradii Turkiga maxaa keenay guushii Talyaaniga aan ku horeyna Turkiga guul darrada waxa uu keenay in Turkiga dhammaan ciyaarta cadaadiska ugu badan ayaga uu saarnaa ama inta badan ciyaarta ayaga la weerarayay ma uusan jirin isku xirka qadka dhexe difaaca weerarka ee Turkiga kala daadsanaan badan ayaa laga dareemayay xulka qaranka Turkiga difaacooda boortahooda ayaaba ugu roonaa oo in badan isdifaacayay qaybtii hore ee ciyaarta hase yeeshee ma jirin Turkiga weerarkooda oo aad loo dhaliilay habka ay u qaabilayeen marka ay kubada helaan difaacida Talyaaniga oo inta badan aan cadaadis kala kulmin difaacida Talyaaniga waana midaas soo dejisay in aad loo weeraro xulka qaranka Turkiga dhanka kale Talyaaniga uu ka fursada fiicnaa uu ka dhex wanaagsanaa uu ka weerar wanaagsanaa uu ka garbo wanaagsanaa xagga weerarka marka la fiiriyo wadanka Turkiga markii loo soo tartanka gurubyadiisa laga soo baxay aad ayuu banooni fiican u soo bandhigay xulka qaranka Turkiga waxaana la rajeynayay in uu meel fiican ka gaari doono xilli ciyaareedkan hase yeeshee hadda khubarada sportiska waxa ay leeyihiin xulka qaranka Turkiga waxa adkaan doonta in ay ka soo baxaan tartanka gurubyada oo ay gaaraan wareega xigo hase yeeshee ciyaar waa gelin dambe ay dhahaan Soomaalidu Talyaaniga aad ayuu xal u soo bandhigay banooni soo jiidasho leh kuma uusan jirin afarta wadan ee loo saadaalinayay inay ku guuleysan doonaan tartanka qaramada Yurub hase yeeshee xalay Talyaaniga banoonigii uu dheeray waxa hubaal ah in uu walaac badan ku abuuri doono kooxaha haddaba isku diyaarinayay inay ku guuleystaan koobka tartanka qaramada Yurub oo loo saadaalinayay lambar 1 xulka qaranka England oo baahi badan u qaba marka la fiiriyo wadamada kale maadaama xulka qaranka England uu ugu dambeeyay inuu koob weyn ku guuleysto 1966 intaas wixii ka dambeeyay wadanka England ma uusan qaadin wax koob adduun ama wax koob Yurub dhanka kale waxa loo saadaalinayay koobkan wadanka Faransiiska oo asiga sanadkii hore koobkan finaalkiisa yimid inkastoo kooxda wadanka qaranka Portugal uu ka qaaday finaalkii koobka hase yeeshee wadanka Faransiiska ayaa waxa uu ku guuleystay koobkii adduunka ee xilli ciyaareedkii la soo dhaafay
waana lambarka labaad ee loo saadaalinayo inuu ku guuleysan doono sanadkan koobka adduunka. wadanka saddexaad ee loo saadaalinayo waxa uu yahay wadanka Portugal oo ah difaacan oo hadda difaacanayo koobkan maadaama 2016 uu ku guuleystay koobkii adduunka. wadanka afraad ee leeyahay fursad ugu badan ayuu haystaa koobkan tartanka qaramada Yurub ayaa waxa uu yahay wadanka Germany iyo wadanka Isbaanishka oo asna sanaad ah. si kastaba ha ahaatee Talyaaniga xalay banooni fiican ayuu soo bandhigay. Talyaaniga xalay weerarkiisa aad ayuu u fiicnaa, 3 gool ayay dhasteen. difaaca Talyaaniga oo ah wadamada aadka loogu tiriyo wadamada ugu difaaca adag marka la yiraaho xagga daafaca dambe, 4 daafac ee ugu dambeeyo in ay soo mareen difaacyadii adduunka ugu hibeeda badnaa sida ciyaaraha Maldini, Nesta, Cannavaro, hadda Jirino joogo ayaa waxa la dhihi karaa markii la fiiriyo dhan walba waxa uu qalqal badan ku abuuri doonaa kooxaha ka soo horjeedo. caawa waxaa jira ciyaaro kale waxaadna ku dhageysan doontaan barnaamijka xigo ciyaarahaas iyo falanqeyntooda. tan iyo intaa kulmi doono barnaamijka xigo share gareynta videoga, subscribe-ka, like-ta waa xaggina, wixii ra'yi commentiga uga soo wadaag. sidaas iyo